إيرتا هرد الآن تكون كينيسو جركينا سيبا مسكحة إنه يكون كينيسو وحلا وقاعدي المبارسة بدل ولا سمايي هردده هدي أي يراتو ويهبين كي مارت قفك آدو يراتو هردده وحنا عيسى قفك مسكحة دي شقدي مسكحة آد به وصقول عيسى لأنه أنت هردنا شقة لقبتها ومسكحة قبتها شقة سحوي إنه قشن كيس ما يسمى شلته أي سفيسه هدي قشن قال السفيوي توكسيك مارتي توكسيك باكوري مارت مسكحة الدحدة كاسو كيني مركور مدحنون اللي وشوفه بدن قرشدي قفك هوسو دعدا فهم كيسو هوسو دعا حفظ كيسو هوسو دعا مركا أرضيين وحبرشدي وكو أتكانيسا قفك وينا قديسو حويان قابك شقديسو من نقونيسو شقا وحسو صار له وقف إن عكا هرده إن عكا سو جيدا تا waxa ka sii daran oo la ogaaday inay ta'thir ku reebto mustaqbalka hadii hurdo la'aantaas ay badato waxay soo dedejisaa xanuunka la yiraahdo asaasaqa Alzheimer la yiraahdo ee ku dhaca maartay maskaxda ee qofku markuu weynaado asaasaqa ku keena ka ayay maartay sabab kartaa mustaqbalka dambe oo dadka inta badan hurdooda aad u yar tahay markay gaaraan 70 ama maartay eerida ay gaaraan waxa ku dhaca xanuunka asaasaqa ah waxa ka daran iyana oo dhibaato weyn ay ku keenta hurdo la'aantaasi qaabka qofku metabolic uu shaqeynayo oo waxa la ogaaday habeen kaliya hadaad soo jeedo subaxii marka laga cabiro dhiigaaga dhiigu intuu hore ahaa 10 ama 20 ama 30 baa ku kordhaya cilmi-baaris badan lagu sameeyay jaamacadaha caalamka ugu waaweyn Harvard ay ka mid tahay waxa la sheegay hal habeen ama laba habeen hadaad soo jeedo markii dhiigaagu inuu fluctuation bilaabayo inuu kor u kaco inuu bilaabayo marka maxay keentaa hurdo la'aantu dhiig kar bay keentaa sonkor bay keentaa sonkortu qodada khalkhal baa ku dhacaya sonkor bay keentaa cholesterol kor bay u qaadaa wadna xanuun bay keeni kartaa madax xanuun fara badan baa maartay hurdo la'aantaas keentaa waxay keentaa qofka maartay dadka qaar waxa jira xanuunadan dhimarku wax yar ta'thir yar ku leeyihiin marka hurdo la'aan ku darsadana waali bay ku keentaaba waali ay ku keentaa waxa kale oo keentaa la ogaado mootul qaflahana ugu badan waxa keena hurdo la'aanta marka maadaama intaas oo dhibaato ah ay keenayaan qofkii mobilka habeen ku daahay oo kadibna seexan waayay waxa muhiim ah qofku inuu ka faa'iideeyo maartay nimcada Ilaahay siiyay oo uu khayrka kaga faa'iideysto oo caafimaadkiisa ku daryeelo laakiin nimcada Ilaahay ku siiyay haday noqoto mid adiga ku tooganaysa oo kugu soo noqonaysa dhibaatadeedii dhibkeeda leedahay nimcadan hadii laga faa'iideysto waayo qofka naqmay ku noqotaayo isaga bay dhibaataysaa marka jazaakumullahu khayr waqti badan runtii dadku iska degdegsan yihiin laakiin arinta aan kaga tagay dhalinyarada waxa weeyaan habeenkii isticmaalka shaashadaha aad loo yareeyo qofka haduu isticmaalayo gelin hore ha isticmaalo ama gelin dambe ha isticmaalo laakiinse isticmaalka faraha badan ee la isticmaalayo shaashadaha aad loo yareeyo waliba waxa ka daran marka qofku uu xumaan ku eeganayo ama xumaan ku isticmaalayo cilmi-baaris kale oo la sameeyay waxa la ogaaday dadka xumaanta daawada ee filimada xun daawada xitaa hadhowto haddii guursadaan waxa ma dhalaanba dareenkii baa ka tagaya kii dhalmada ka tagaya waxa weeyaan wax laga qofku inaan u hamoon dumarkiiba inuu waa wixii halkan ku soo dhameystay waxnu daawanay ku soo dhameystay marka taas mushkilad kale keeni kartaa oo dhalmanaanta ugu badan maartay runtii qayb ka ah taana laga digtoonaado oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcaduna siiyay khayr oo aan kaga faa'iideysano oo sharta maariyan laga faa'iideysanin wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi